بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ميل والبعض نجا داونيسان كنا سو دوادا ورك الرويال oo idinkaga imaanaya xarunta saddexay aan ku leenahay magaalada caasimadda ee Muqdisho warku waxa ay la socodsiinaya Abdu Rabbi Idmaani iyo Cabdiraxmaan Sida Xasan Cabdiraxmaan Talante wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Said ayaa la hadlay beeraleyda gobolka Gibiley sida warkaasi uu inoogu soo diray gobolka Gibiley wariyaheenna Muuse Xuseen Xasan wasaaradda maalgashiga gudoomiyaasha degmooyinka Allah ay baday iyo arabsiya meel ku-xigeenka barza ku-xigeenka dhammaan ka soo qaybgalayaasha madasha isku yimiday wasiirkii hore wasaaradda beeraha Maxamed Awdaahir oo isla madasha ku sugan ciidamada qalabka sida iyo haweenka dhalinyarta saxaafadda dhammaan madasha ku sugan oo ugu madaxweynaha hay'adda sayis madaxdeeda iyo KFW inala jooga dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii hadalka kooban ee oran doono intaan oran farxad bay tahay maanta inaan soo horjoogsado 380 beeraley oo runtii aniguna aan ka mid ahay sida Maxamed wasiirkii hore sheegay aan ka mid ahay beeraleyda waan wasiirku ku koobnay laakiin ahay nin beeraley inaan la hadlo 400 oo beeraley maanta sharaf ay tahay taariikhda way geli doontaa waana wax lagu faano oo lagu diirsado si aad ogtihiin wasaaradda horumarinta beeruhu waxa ay igman tahay wax soo saarka dalka si aad ogtihiin wax soo saarka dalkuna socon maayo ilaa beeraleyda iyo wasaaradda ay gacanta isqabsadaan haddaan mashruuca in yar dib ugu noqdo mashruucan runtii waxay laba dowladood baa kala saexday dowladda Jarmalka iyo dowladda Somaliland dowladda Somaliland wasaaradda beeraha ugu wakiila dowladda Jarmalka waxay lacagta soo marisay banka horumarinta Jarmalka ee KFW soo dhex marisay waxa korsata noo ah hawsha nala wada sayis oo iyaguna madaxdooda maanta inala joogaan mashruucan sida laga sheekeeyey waa mashruucii ugu horeeyey ee wasaaradda soo mara waana mashruuc muddo badan dhexe ku soo jiray uu joogaa wasiirkii saxay Maxamed Awdaahir iyo wasiirka hadda wasiirka maaliyadda Saacad uu ku jiraa 2015 ayuu mashruucani wadanka yimiday ilaa waqtigaana waxay barbuusan in la halku ku habboonaa baa la raadinayay waxaan nasiib u helay anigu inaan noqdo maanta fuliyaha mashruuca iyo nasiib u helay laakiin wasiiradii hore Maxamed inala joogo waxaan wasiiradii soo dhaweeyay in mashruuc suura galo mashruucuna Somaliland waa gobol ballaaran dalka ballaaran ee Somaliland meel ka mid mashruuc ku dhacay waxa la igu xantaa fuli xaqiisa ma mogalay saafada inta badan waxa la igu xantaa inaan Gabiley ku koobanahay laakiin Gabiley kuma koobniye Somaliland oo dhabeerleeyada mas'uul baan ka ahay waan wada gaarto laakiin waxaan ku koobanahay mashruucan banka Jarmalku bixiyay wuxuu ku dhacay oo aniga iga soo horeeyay inuu halkan aan maanta taaganay ka fulo gobolka Gabiley inuu ka fulo mashruuca ku dhacay marka waxa leeyahay oo ku dardaaraya dhammaan beeraleyda Somaliland gobol walba iyo degmo walba iyo beer kasta Somaliland ku taala mas'uuliyadooda aniga ay saaran tahay waa inaad aamintaan waa inaad ku aamintaan waa inaad dawladdiina aamintaan waa inaad siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagu hogaaminayo iyo madaxweyne ku-xigeenkiisaba iyo ballanqaadkii barnaamijka xisbiga kulmiye wuxuu ahaa inay Somaliland iskaga filnaato cunada la cunayo iyo qudaartaba oo aynu joojino waxyaabaha dibadda inooga imanaya taabaynu muxuu ahaay inaynu hawshaas fulino iyo igmanahay wasaaradda beeruhu iyadoo taa ka duulaysa waxay ku dhaqaaqday inay loolkii iyo hawshii ay lahayd ee qaranka u igmaday oo ay wasaaradduba ku fogan tahay wasaaradda caafimaadku way ku fogan tahay
wasaaradda waxbarashada way wadaa, wasaaradda maalgashiga way wadaa, wasaaradda isboosiga isgaarsiintu way wadaa, wasaarad kastaba waxay wadaa shaqadii ay qarankan u haysay ee shicibka mas-uul uga hay. annaguna waxaanu ka midnahay haddaan nahay wasaaradda beeraha waa halbowlihii qaranka, waa wasaaradda laga rabo inay quudiso dhammaan bulshooyinka reer Somaliland bari ilaa galbeed, annagoo ah tilmaame oo aanu ku dhiirigelinayno shacbiga reer Somaliland ee beeraleyda iyo wasaaradda beeruhu inay isku noqonayaan wax keliya si aynu horumar uga gaadhno dhinaca wax soo saarka, ama ha noqoto khudaar ama ha noqoto raashinka la quudanayo. markaan ku soo dhawaado mashruucan wuxuu bilaabnay 9 bishii 2016 waxaa guul noo ah inuu noo bilaabmay 7 bishii 2019 inaynu dhagaxa dhignay. waxaa maalintaa dhagaxa dhigay oo goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo golaha wasiirada halkan ila jooga iyo barasaarku waa loo wada dhanaa maalintii. xalaal iftiin baa la cunaabay Soomaalidu tiraahda. waxaanu intaa iskugu yeedhaynay aanu u tusaynay madaxweyne ku-xigeenka oo aynu rabno dhammaadkiisa inuu iman doono madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ama madaxweyne ku-xigeenkuba waa inay arkaan shacbiga reer Somaliland waxay ugu talagaleen banka horumarinta Jarmalka ama wadanka horumarinta Jarmalku wixii ay dadkooda wadankooda ka soo gooyeen contribution-ka ay bixiyeen inay dadkii loogu talagalay gaadheen waa in la arkaa. waxaa Somaliland daashaday 28 sano Somaliland jirta. waxaa runtii Somaliland daashaday mashruuc inta la soo qaado la yiraahdo mashruucyada beelka laga fuliyay. waxaynu rabnaa inaynu ka korno in mashruuc la ina siiyo qasaaro noqdo. waxaynu rabnaa inaynu wixii ina soo gaaray halkii loogu talagalay uu gaadho, wixii loogu talagalay lagu qabto, sidii loogu talagalay in looga faa'iideysto rabnaa. mashruucani dhowr qaybood buu iskugu jiraa. mashruucan wuxuu iskugu jiraa barkado loo dhisayo deegaanka gobolka Gabiley. barkadaasi waa 25 barkadood. waxaanu gacanta ka qaadnay imika dhisnay 8 barkadood. 8 baa hadda dhamaaday.